wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada xukuumadda Soomaaliya maamulka ciyaaraha gobolka Banaadir iyo xiriirka kubadda cagta dalka ayaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ku soo dhaweeyay xidigaha jaaliyadda Australia iyagoo Muqdisho u soo gaaray inay kulamo saaxiibtinimo la ciyaaraan xidigaha gobolka Banaadir iyo degmada Waaberi oo ah degmada hanatay ciyaaraha degmooyinka sanadka 2017 waxaa maanta mahad ah in jaaliyadii Soomaaliyeed ee magaalada Melbourne ee dalka Australia ee kooxda kubadda cagta iyo maamulkeeda ee magaalada Muqdisho booqasho ku yimideen waxaana la joogo wasiirka ku-xigeenka dhalinyarada iyo isboortiga safiirka u fadhiyo Soomaaliya dalka Australia qonsulka dabcan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta gudoomiyaha jaaliyadda magaalada Melbourne ee isboortiga aad iyo aad ayaan macnaha maanta ugu faraxsanahay odayaashii reer Australia dhamaan martay sharaf kale oo aad u badan insha Allah hadda technicality ka warbixiyo kooxdaani waxay u timid gobolka Banaadir waxaan la ciyaari doontaa kooxo ka dhisan gobolka Banaadir insha Allah waxaan la joogi doonaa toddobaad aadaan ugu faraxsanahay Hussein Xarakow oo qayb ka ah wafdiga jaaliyadda sportska Australia ayaa tibaaxay in ujeedka ugu weyn ee halkan u yimaadeen ay tahay isdhexgal bulsho iyo in ciyaartooydan ay bartaan dalkooda iyo dadkooda ujeedadan u nimid waa isdhexgal bulsho runtii ma sports kaliya dhalinyarada Australia ka keenay waxay jecleysteen inay dadkoodii soo bartaan dhalinyarada wadanka qaasatan inay soo bartaan ay dhexgalaan ay la sheekeystaan sportigan wuxuu ka mid yahay yani bridge-ki waxa dhisi lahaa waa sabab aan sportigaas ku nimid laakiin isdhexgalkaas ka muhiimsan waxaan rajaynaynaa in bulshada kale caalamka ku nool Soomaalida kale oo Canada iyo wadamada kale ku nool Mareykanka anaga naga badan runtii tir ahaan inay nagu daydaan iyagana ka soo qayb galaan arrimahan oo kale mustaqbalka waan u mahad celinayaa sida sharafta leh ay magaalada Muqdisho iyo madaxdeedii maanta ay noogu soo dhaweeyeen magaaladan aadan ugu mahad celinaynaa runtii wax lagu farxo waaye aan muddo sugaynay inaan magaaladan nimaad sanadkii hore aan ka baaqanay sabab technicality awgeed laakiin sanadkan waxa noo suurta gashay inaan nimaad runtii ragga ka shaqeeyno aan mahad celinayna wasiirka xogeenka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada xukuumadda Soomaaliya Axmed Islow ayaa markii hore soo dhaweeyay wafdiga isagoo sheegay tani inay qayb ka tahay horumarka uu ku tilaabsanayo sportska dalka waxaan leeyahay kaalin aad u muhiimsan ay ummadda Soomaaliyeed u sameeyeen mar haddii aad ku dhiirateen in ubadkiini iyo ilmihiina aad ku soo dhaweysaan isla markaasna aad u soo dirtaan Soomaaliya waa arrin aad farxad u leh waxaan leeyahay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxay mataana la noqonaysaa caasimadda Australia ee Melbourne mar haddii isdhexgal bulsho u yimaado isla markaasna sportigu aad ugu faafayo Soomaalidu meel kasta ay ku nooshahay waxaan runtii ilmaan hadal kuma jiro waxaan runtii si gaar ah ugu mahad celinayaa anigu ku hadlaya magaca wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Marwo Khadiija Maxamed Diiriye oo runtii qayb mug leh ka qaadatay sidii ay dhalinyaradan ugu imaan lahaayeen Muqdisho isla markaasna ay ciyaar wanaaga ula ciyaar lahaayeen walaalahooda iyo dhigooda ciyaartooyda halkan joogto waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay shaqo qaran ah qabatay ummadda iyo dalkaba anfacaysa waxaan sidoo kale leeyahay baada saxaafadda ee runtii waqtigooda soo horay ee runtii ayagoo ka qayb qaatay inay ciyaartooyda soo dhaweeyaan waa mahadsantihiin gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xiriirka kubadda cagta Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine oo ku hadlayay magaca xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa markii hore u mahad celiyay maamulka gobolka Banaadir martiqaadka ay u fidiyeen jaaliyadda sportska Australia marka xigtana qayb weyn ay ka qaadan doonto horumarka sportska wuxuuna sidoo kale sheegay in jaaliyadaha wadanka dibadiisa ku nool ay dalka yimaadaan runtii aad ay farxad noogu tahay inaan halkan ku soo dhaweyno dhalinyarada ka socota magaalada Melbourne ee wadanka Australia haddii Ilaahay yiraahdo waxa sida la sheegay waxay joogi doonaan muddo 6 casho ah waxay la ciyaari doonaan laba kooxood oo ka socota gobolka Banaadir iyo koox ka socota heer qaran oo ah kooxda Banaadir Sports Club haddii Allah idmo waxaan rajaynaynaa maalmaha ay joogaan in ay jiri doonaan fantasiyaal badan oo qadabo martiqaade fara badan si ay dalka u jeclaadaan ay u ogaadaan in walaalahood meesha uga soo horeeyeen waxaan u mahad celinaynaa gobolka Banaadir oo kulay martiqaadka lahaay qasabna ay ku tahay maadaama ay caasimadda iyagu ay madax ka yihiin inay cid kastoo Soomaaliya oo timaada inay martiqaad u sameeyaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan kaloo u baaqaynaa dhammaan jaaliyadaha wadanka dibadiisa ku nool inay dalkooda yimaadaan ay ciyaaro saaxiibtinimo ciyaaraan dalka wax horumarka oo ku soo ziyaaday arkaan sidaas ayaan u rajaynaynaa marka koowaad iyo mar labaad mar saddexaadna waan soo dhaweynaynaa isku soo wada dub xidigahan ayaa kulamo saaxiibtinimo la ciyaari doono
degmada Waaberi oo ah horyaalka degmooyinka gobolka Banaadir xidigaha gobolka Banaadir iyo kooxda Banaadir Sport Club oo kamid ah kooxaha horyaalka heerka koowaad ee dalka.